maanta sheekadu waxay taagan tahay Soomaaliya oo ictiraafta mooyee wax ma noqonayno xaqiiqadu taama Soomaaliya military iyo awood iyo xirfad ay ku qaadatay mas'uuliyadda Somaliland horta ma jirto waa hadiyad la siiyay iyadoo dawlad ba dhisan ayaa Soomaaliya la siiyay yaa siiyay baa su'aashu taala exactly mushkiladda Soomaali qaybsigeegii late maxaan ku idhahaa 18th century wixii bilaabmay ee layna manipulate gareynayay bay tanina tii ugu dambaysay tahay waa Mareykan iyo Ingiriiska iyo EU-dii iyo baa hadiyad ku siiyay Soomaaliya waxay xaqiiqadii ayadu haysatay maaha iyadoo dhisnayn oo fictional state jiro ayuunbaa la yidhi idinkaad halkaasaad ku xidhantihiin waa xaqiiqa maxaa maanta yaalla waxaa la yidhi nin waalan baa la yidhi bal geelan kaxeeyo meel heblaayagee dariiqii intii ku sii siday ayaa fikradii ku soo dhacdayoo awrka u horreeya ayuu ka u dambeeya farurtii ugu xidhay aasuu iska dhex seexday ilaahow jid u fur buu yidhi hadda isagii baa ku xidhay sidaasay sarkal u socdaan ilaahow jid u fur buu haddana halkaa la jiifaa liidarskeennu ilaahow jid u fur taana kumaba daraan iyagaa iska dhiga inay yihiin kuwii xal hayoo sarkalkaa un baynu ku jiraa war xaqiiqadu waxa weeye run haddaynu ku hadlayno historical facts baa jiroo waa la isku keendilayaa innaga faruurihii la isku keen xidhay we have not found a solution wadahadalkan anigu waan joogay qayb baan ka joogay xirsi dadkii iyo maxamed biixi yoonis iyo dadkii ku jiray baa ahay ee intoo dhan la socday anu kii Jabuuti ee bilowga kala tagu ku soo baxay baan taagnaa waan joogay Somaliland waxay la timi war Turki nama dhaqi karto Turki uun ku xidhnaada ee adduunyadii kale aynu ka qayb gelinaba hadalku ah laba waxyaabihii horeynu ku heshiinay taa airspace-kana ahaatee waad jabiseene wax dee la isku halayn karo la kaalaya maxaa dhacday xirsi sidaa uu taabtay horta intii ka horraysay shirarka iyo wadahadallada Somaliland qaar ka socda oo xamar ka yimi kumay jirin heshiis baa yaallay hadalkaa markii Jabuuti la yidhi maxaan ku idhaahaa go'aanka weliba si adag baa loo hadlo anigu waxba ku dheeraan maayo taasoo iska aflagaadana ahayd markii waxaan socdeen aakhirkii waxa la isugu yimi Istanbul oo waxa lagu ballamay Istanbul in la yimaado marka maxay samaysay Soomaaliya waxay samaysay si loo joojiyo doodaas ayaa qaar Soomaaliland ruulkii hore jiray baa la jabiyay waxa la keenay 3 qof oo Soomaaliland ka socda ayaa la keenay Soomaaliland marka maxay samaysay tiimkii Soomaaliland waan joogay Maxamed iyo Xirsi iyo waa wada joogeen waxa la yidhi ma hadlayno ruulkii baa jabiseen ujeeddaa jirta aad u jabiseene dee ilaa aynu sidii hore wada hadal u wadno mooyee ma gelayno halkii baa hadalkii ku joogsaday funny thing annagu Hargeysa markaanu ku noqonnay ma waxaad aragtay wada hadal la socdo oo dadku ku farxaan markay burbureen Somaliland airportkii markii aanu ka degnay waa ka Maxamed xirsi waa joog qaabilaadda Somaliland lagu siiyey waxaad moodaa in xurriyaddii baanu helay bagaa diideen waayo haddii aanay diidin delegationkaas haddaanu diidin xukuumadda qudheedu khatar bay ku geli lahayd waayo quursi baa yimi waxa yimi wadahadal baanu gallay waxbaan isku hadlaynay sidiiba haddana nalagu diiday marka anugu dhakhaatiir Egyptian oo aan wada shaqaynaynayba dariiqaa la soo maray ambassador iyo halkaa ayay ku leeyihiin international hospital what happened maxaa dhacay dee dagaalkii baa burburay hadalkii baa burburay yeah it doesn't make sense so much laakiin dadka it made sense waxaan ka wadaa adeerow circle baynu ku jiraa anugu waxa u dana Somalilandna u dan circle-ka sidii aynu uga bixi lahayn
ee dadkeenna aynuga saari lahayn ayaa muhiima. anugu waxaan qabaa oo kale siyaasiyiintoo keliya ee xilka haya kuwa xilka haya uun haddii loo daayo sheekada mid waliba intiisaasuu ku adkaysanaya oo odhanayaa haddii aad samayso. marka waxaan u socdaa madashan oo kale iyo intellectualska iyo inay maskaxda furaanoo sidii sarkalkaa awrtu ku jirto ilaahu jidii furma soconayso oo keliye waa inaynu inana ka shaqaynaa baan qabaa. brofesorka waxaan weydiinayaa weliba aniga wakhtiga ku yaraynayaa laba arrimood inuu eego uu xirsi ka dhawaajiyey. mid waxa weeye referendumkii somalilan laga qaaday, midda kalena waxa weeye constitutionka ku-meelgaadhka ee soomaaliya. labadaas arrimood sidee u saameynayaan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya? wakhtigana adiga waa mahadsan tahay. runtii arrin muhiimaha jirta oo ah haddaan rabno inaan horay u durjinno debateka ama doodda inaan horay xoogaa u riixno waa inaan xoogaa ku dhiiran karno mararka qaar waxyaalo aan xoogaa ilaalin jirnay. runtiina waxa meeshaana soo gaarsiiya waxa waaye inaanaan awoodin inaan mararka qaar waxa controversialka ah ama xoogaa loo arko inaan xoogaa dib uga degno. annagaan xataa akademiyada ku jirnoon siyaasad haynin arrinkan markay timaado nin waa sensitive waxa laga yaabaa inay dadku si uga damqadaan iska daa ayaa jiri jirtay intii muddo ah. taasina waxba ma xallin, arrinkii mushkiladiisii weli way taallaa. arrinka mustafa hadaati sheegay horta soomaalidu markii gumaysigu qabsaday xorriyad iyo midnimay doonteen meel kastay joogaanba. markaad aragto documentiskii iyo himilooyinkii ahdaaftii xilligaa jirtay labadaa qodobay ahaayeen. waxaan rabnaa xorriyad, waxaan rabnaa midnimo. waxaa ka dhashay Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray. Somali State-kii Somali Republic la dhihi jiray labada gobol ee isku timid kaliya uma dhalan. We have to understand this. labada gobol uma dhalan wuxuu u dhashay Soomaalida. Citizenship looga oo ay samaysteen markaa eegtana waa ku caddahay. qodobadiisa dastuuriga ahaana waa ku caddahay. wixii dumiyeyna waaba sidaas. marka annaga waxaan we have one state oo labadii xorta qaadatay ka koobnaa oo meesha noo taalla. tii baa naga duntay, dhib weynaana kala gaaray. waa run koonfur ama koonfuriyaan dhihin the central government of Somalia kama garaabin wixii dhacay, mararka qaarna uma garaabin xataa wixii horumarahoo jira. waxaasoo dhan waa run, laakiin waxaa jira oo xaqaa'iqa in ayada keliya aan hayno. anigu waxaan aaminsanahay Somaliland madaxdeedii inay khalad sameeyeen. khaladka ay sameeyeenna uu ahaa inay kaliim gareeyaan sovereignty-ga ayaa uga sahlanayd markaa cid ku haysatayba ma jirine inay yidhaahdaan waa ka tagnay. haddii markaa fakar bisil iyo wax rasmiya oo jira ay jiraan taasaa uga sahlanayd. magaala madaxdu waa Hargeysa, cigaal mid koonfurta uu ka soo qabtay waa dhihi kare waxaad ii tahay maaragtay vice president and so on. we could debate on that. haddana international community-gu 30 sano kadib waxay noo sheegaysaa aan xaqiiqadana ay tahay sovereignty hadday Soomaali wixii republic la dhihi jiray xabadaasaad haysataan ku dhex shaqeeya ayada saasaan loo sheegayaa. marka inaan sidaas annaga saan uga shaqaysiin lahayn ma super structure aan ka dhignaa ama confederal aan ka dhignaa ama hab kale aan ka dhignaa ma xataa haddaan kala baxayno waxaan u kala baxnaa sidii nidaamka caadiga loogu kala bixi jiray oo waxaan yiraahdaan unilateral declaration ma soconayse in xataa la sameeyo maxaan ku yiraahdaa referendumka hadda uu weydiiyay Cabdixakiin. referendumkaas dabcan haddii noocaas oo kale u dhacayo waa in Soomaaliyada xamar maaha yacni inay ayadu gasho maaha, laakiin inay marka wada hadal arrintaa ka yimid ay ku timaado South Sudan iyo Eritrea saasay ku dhacday. adduunyaduna saasay hadda u dhaqantaa. marka waxaan rabnaa inaan isla garanno. anu kulley dhowr jeerna hore waanu iri hadda ka hor dood maxamed cabdulaahi cumar oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa iyo cabdi samatar ayaan la galnay. waxaan isleeyahay hal ayay u dhammaanaysaa. annagu haddaan nahay Soomaaliya dawlad ma dhisi karno oo xamar kaliya kama dhisi karno. taariikhda 30 sano oo la soo dhaafayna
Somaliland oo maqan dastuurna ma samayn karno electionna ma samayn karno waxba ma samayn karno ciidanna ma samayn xaqiiqada marka loo hadlayo dawladdeena xamarna malaha saas inay u fahamsantahay ama ku baraarugsantahay ma ogi laakiin lisaanul xaalkeeda kama muuqato Somaliland intay iska tagto inay caalamka annaga waa baxnay oo dawlad xor ahaan nahay dee lagama soo yeelin 30 sano saa ku socotay mar waxaan eri oo waliba reer Muqdisho qaar badan ay kula dagaalameen maybe this state-ka aan haysano aan Hargeysa ka soo dhisno hadii loo baahdo ama aan meel kale ka soo dhisno laakiin this is tanan haysana state la'aanteedna lama noolaan karo oo maanta waxa way dhalinyarada meel kasta joogtay adduunyada yani adduunyadii kugu qasbaysa inaad state haysato marka waxaan isleeyahay yani arinta ayada ah in dhaqanka xamar yaala iyo dhaqanka Hargeysa yaala ee madaxdu oo isbedelo anigu Mustafa sidoo sheegayna waa qabaayo xorriyadii iyo midnimadii himilada u ahayd ummadda Soomaaliyeed wali waxaan qabaa inay wax sax oo fiican yihiin haddii eliitkii siyaasaddu ka shaqaysiin waayeen dee kuwana la rabaa inay ka shaqaysiiyaan that's all aad baad mahadsantahay waxaan